waxaan maanta cabasho ka nahay mas'uuliyiintii beesha Daawud haba kala horeeyano runtii mas'uuliyiintu dadku ma oga hawsha lagu jiro inaysan ogeyn iyo inay ka tahay maaragtay hagar ka tahay iyo maaragtay siyaasad ka tahay ma kala naqan annaga waxa ugu horeeya xildhibaanka qaranka ee beesha Daawud waxaan ugu dambeysay maalinkii aan ka soo baxaynay degmada Kaaraan aan ugu dambeysay muuqaalkan aad u jeedaan wuxuu ka imaanaa furmaha hore ee dagaalka lagula jira kooxda al-shabaab waa ciidamo ka tirsan dawladda ciidankan waxaa ku dhex jiro kooxo qabaa'ilo macawisle oo kale waa hal qabiil waxaa loo diyaariyay marka la dagaalanka al-shabaab inay qayb ka qaataan dagaalada ka socda shabeellada dhexe ilaa iyo gobolada galgaduud oo kale laakiin maxaana ku dhacay ciidankan hadda waxay ku dhawaaqeen inay sameeyeen gadood dhaqaale la'aan raashin la'aan caafimaad darro daawooyin iyo dhibaato kasto askari furinta jooga oo la kulmi karo in hadda iyagu ay haysato waxay sheegeen marka in iyagu dagaal la geeyo furmaha hore ee dagaalka la geeyo muqdisho laga qaadayo qaybo ka mid ah eeriyada muqdisho in dhaqaalaba lagu qaatay dacwo ay yihiin marka fariintooda waxay codsanayaan in la gaarsiiyo madaxda Soomaaliya si wax loogu qabto iyo dacwo ka yihiin yaa geeyay furmaha hore ee dagaalka waana kuma shakhsiga iyaga mashruuca ku qaadanaya waxaan kula wadaagi doonaa marka sawirkiisa muuqaal hore loo duubay markii la qaaday ciidankan intaan gudaha u galin si dagaalka shabaab lagula jiro loogu ilaaliyo madmadowga iyo ku qaadashada mashruucyada dhaqaalaha waxaan ka codsanaa muuqaalkan inaad qabatid adiga ugu dhacday ka qayb qaadatid la wadaagtay saaxiibadaada kale sababtoo ah waqtigan Soomaaliya dan uma ahan askar furmaha dagaalka joogo inay ka soo laabtaan gudoodna sameeyaan iyagoo markaa qabo cabasho dhaqaalo si lamid ah in la daryeeli waayay caafimaadkooda qaarkood xanuunsadeen xitaa waxay cunaan ayay waayeen sida iyagu ku dhoodaba ay sheegi doonaan muuqaalkan aad ka arki doontaan sawirka ninkan aad u jeedaan waxaa lagu magacaabaa Bashiir Macalin Cali waxaa jiray muuqaal maalmo yar oo kooban ka hor markii la sagootinay ciidankan isagoo isku keenay laakiin maxaa dhacay muuqaalkaas ayaan kula wadaagi doonaa dabadeed waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalka waqtigan maanta ah ay soo direen furmaha hore ee dagaalkan ay iga soo direen nimankan waa la yaqaanaa dagaalay ku dhasheen dagaalay ku soo koreen ayagaaba dagaal ka samaysan waxaan rabnaa askarigi keeno argagixisada kuwa ugu waaweyn ee deegaanka dhibay ee dadka dhibay askarigi madaxiisa keeno waxaan u ballan qaadaynaa abaalmarin weyn u ballan qaadaynaa waxaan rabnaa meeshaan tartan ka furan ma la sheegay abaalmarin weyn la ballan qaadaa gudoomiyaha gobolka waa joogaa xildhibaanada waa joogaan annaga sideeda banaanbo ninka xabadda dhabarka ee ugu dhacdo annaga naga ma tirsano waxa ugu horeeya xildhibaanka qaranka ee beesha Daawud waxaan ugu dambeysay maalinkii aan ka soo baxaynay degmada Kaaraan aan ugu dambeysay kadib cid hadalkiisa aragtay amba hawsha la haayo meesha uu ka taagan yahay ma jirto ciidanka dawladda ee la yiri waa in daba socdaa waa soo daahay waxaan codsanaynaa marka hore horta in ciidanka dawladda la haayo la helo si aan hawlaheena u gudubno waxaan kaloo rabaa xildhibaanka qaranka xildhibaanow hawsha aan ku jirno ma inaad moog tahay yaa inaad ay ka tahay hagar ka tahay ma kala aqaan waxaan rabnaa xildhibaanow hal lugaad dadkan ka warqab dawladda Soomaaliya wax gooniyahay dadkan siisa ma jirto amba hanaqato maaragtay dad inteena badan waxaan ka nimid xamaraan ka nimid waxaan ugu nimidna waxay ahayd inaan dalka xoreyno war haddii aan mas'uul Daawud lahayn hadduu yahay xildhibaan iyo halka kale dhagax tuuri jiro dabka shidi jiro agaasimaha ahay oo maaragtay cunug dhalahayo madaxweynaha xilku u dhiibiyo agaasimaha ahay maana inta loogu yimido inta deena galshow naga fudi Bashiir Macalin Cali waa ninkan ka hadlay deena galshay intuu nagu yimid waxa la sheegaa saaka inuu askarta qaar soo wacay oo leeyahay soo baxa ka soo baxa aaga waa ceeb waa nasiib darro agaasimi taas ma ahan dhagaxa asala tuurisay xilka ku hashay iyo xoreynta dalkaaga labay kala yihiin agaasimi waxaan ku leeyahay arrintaas kumantuu madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan leeyahay ogow dadka aad boodin inay kula shaqeynayaan kula shaqeeyno waana shaqo gooniye wataan
arrintaasi waxaan codsanayaa in il gaara madaxweynaha uu ku hayo xildhibaanka qarankana waxaan leeyahay xildhibaana dadkaaga iyo deegaanka lagu doortay ma og tahay mise maaragtay moogaa tahay xildhibaanka aaway muuqaalkan aad u jeedaan waa Bashiir Macalin Cali oo ciidamadan isku dubriday xildhibaano ayaa qayb ka ahaa madax ka tirsan maamulka Hirshabelle ayaa qayb ka ahayd maalintan waa la faraxsanaa waxa loo socday dagaalka shabaab lagula jiro ama shabaab lala galayaba laakiin ciidanka marka la qaado ee la geeyo furmaha dagaalkuna ay galeen guuleysteen qayb ka mid ah ay ka saareen shabaabka kadib maxaa dhacay iyagu way soo laabteen magaalada Muqdisho iyo hoteelada magaalada ku yaal ayay degeen cuntadoodii jiifkoodii noloshoodii caadi ayay u wataan laakiin taleefanada ayay ka dansadeen ciidankii furmaha la geeyay waxa ka dhamaaday dhaqaalaha saadka wax kasto maanta way cabanayaan marka waxay leeyihiin waxa codsanaynaa waxa cunno daawo iska daaya waxa cunno in la siiyo sidee marka askari gaajeysan caafimaad darro hayso hubkii ka dhamaaday sidoo u dagaalami karaa waa taas su'aasha isweydiinta mudan waana taas sababta fariintan halkan ay kula wadaagaya waa askari jooga furmaha dagaalka oo sheeganaya inuu baahan yahay hub u baahan yahay caafimaad u baahan yihiin lana doonayaan in la dhaqaaleeyo gacan hoose loo lahaado caafimaadkooda iyo cunadooda oo kaliya isaanada iyo hubkoodaba laga taxadiro si ay cadawga ugu saaraan dalka oo dhan muuqaalkan waxaan ka codsanayaa mar kale inaad la wadaagto saaxiibada kale mahadsanideen